meertadii musharaxnimo ee maxamed yaasiin mahdi oo u sharaxan kursiga hob ever shan ayaa maanta la joogaa mudanayaal iyo marwooyin shiidla ahna waa ay u mashxaradaynayaan musharaxa go'aanka waxaan ku soo gaarnay inaan garabkaaga joogno kaliya ma ahayn ereye sugaaneedkii lagu maamuusay musharax maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa ee sidanna mar kale ayaa la yiri khudbado ammaan duco iyo dhiirigelin isugu jirta oo ay jeediyeen dadkiisa yacni shiidlo ayaa inoo soo socda balse intaynan ka dhammaan afmaalka shiidlo bal aynu dhagaysanno laashinkan ammaanaya musharaxa buuga waxaa lagu dhigaa birima iyo teerto nimba buundadii leehay aa lagu baryayahay maxamed deeq alfa beerdare ha suubinin ana bilaashoogin birmada aan kuu qoro buuka koowaad bakti ii nijaas malabtaho booliyo gajiixa waa birigaadaa la soo gaaray lexda bahood iyo shiitaho lexda bahood iyo shiitaho baalka ay kaaga jir saddex bahood beel tolweyne saddex bahood beele badhaale baabka baledkaagu aala buuxahay bawyo iyo beereey bulaabo alla qaba goosaar ma karaa adeer cumar baalkaa kaajo ogaayahe murtidan midba jaadkeeda ah ee muhiimadeedu ay tahay muujinta meeqaamka uu musharaxa ku dhex leeyahay beeshiisa aynu ku hakinna halkaas oo aynu eegno oraahda nabadoonnada iyo dhaqanka shiidlo ee soo martiyey munaasabadda saldanada lixda shiidlo xuquuq badanaa ka maqan ninka koowaad oo xuquuqdaas saldanada lixda shiidlo u doodi karo heeryadii ku jirta ka bixi karo ee hadda meesha ay higsaysa geersii karo maxamed deeq alfo waay maxamed deeq alfo waa kuu ducooyhaynay waxaan kuugu ducooyhaynay si fudud in aqalka hoos ilaahay kuula garab galo si fududna aad ku soo baxdid waxaan rabnahay maxamedow noo soo dhowaaw wiilkayni yaa tahay dalkaadii waaye dadkaana dadkaadii waaye ruux walba oo noo yimaado inaan soo dhoweyna jidkaa ku jiro naf walbane nasiibkeeday qabtaay insha allahu tacaala ilaahay niyadda nabiga calayhi salaam innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa asiri niyadaada allah ku yeelo waa musharax badanaa jira iyo waxaasaa jira musharaxna anfaco oo buuxii wejigayna bahdaan ka aragnay maxamedow ilaah muraadkaada ala ku salo ilaahaan tuugeynay waa aqbalnay soo dhaweyskaada ilaahay kaa soo dhawaajiye afkaada allah ku yeelo faataxdayna allah ku aqbalo maxamed deeqow waxaad tahay nin soo halgamay waxaad tahay nin beelaha lixda shiidlo muctaraf ka ah waxaad tahay nin aqoon-yahan ah waxaad tahay nin dhallinyaro ah oo aad iyo aad ugu firfircoon howlaha loo baahan yahay ama aqalka sare ha noqoto ama aqalka dhexe ha noqoto nin mutacalima ah oo jaamici ayaa tahay waxaan leenahay maxamedow kii guulaysto oo noogu guulaysto bahweynta beelaha lixda shiidlo samata bixiyo ilaahay kaa dhigo waa guulaysatiyo guulayso dadka aad ka dhalatay waa dad iska masaakiin ah dhulkale la gooyey al'aanana la gooy rabo haddaana ilaahay rag u bixin adoo kale ana weligood dhulka ku jirayo siyaasiyiin waxgarad iyo haween ku abtirsada beelaha lixda shiidlo oo uu musharaxa ku matali doono kursiga ayaa qudhooda dareen hadlay duco iyo ammaanna u jeediyey musharaxa musharax maxamed deeq oo alfa ku magac dheer waa nin dhallinyaro ah waa dadkii loo baahnaay dadkan isbeddel inuu ku sameeyaan kursigii soomaaliya maanta wuxuu noqday 20 sano in iskaga fadhiyo waxyaabaha yaab kala wa 20 sano qof inuu kursi iskaga fadhiyo waxaad moodaa asaga in dhaxal ugu leeyahay marka sida hadda dadkaadii ay kugu soo baxeen oo kugu sharafeen in ay ka hadlaan codkooda ay ka dhiibtaan
inta ilaahay muraadkaada kuu sahlayo waxaa laga rabaa inaad adkaarta badsato. maxamed soo dhawow runtii aniga qof ugu qaaliya tahay si gaar waxaa ii ahayd macallin oo waxaa ahayd macallinkii kaamirimaanka ama qofkii isoo baray kaamirada. runtii maantana waxaan ahay qof siyaasi ah. runtii aniga si gaar marna waxaa tahay walaalkay, marna waxaa tahay macallinkeyga, marna waxaan ku wada jirnaa hal group oo isku dhaho beelaha lixda shiidlo. shiidaas noo nahay soo dhawow soo dhawow. runtii anagoo arkayna qof dhallinyaro oo aad u firfircoon diyaarna u ah inuu wax u qabto dadkiisa. ma jirto sabab aan kaga weecan karno ama ii sheeg musharax kale inta u raadi karno. maxamed yaasiin runtii inta aan aqoonta ugu leeyahay waa shakhsi aad iyo aad u firfircoon, wax badanna ka soo shaqeeyay dadkiisana wax badan u taray. musharax xildhibaan mudane maxamed yaasiin mahdi ayaa munaasabadda kaga dhawaaqay ujeedadiisa musharaxnimo iyo macluumaad kooban oo ku saabsan noloshiisa. waxaan ahay maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa ayaa lagu garan ogyahay. waxaan ahay musharax u taagan mid ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee dalka oo beelaha lixda shiidle ay leeyihiin. tirsigeedu uu yahay hob eber 5. marti ayaan idinkaga ahay, kalsoonidiina ayaan rabaa, waxaana aaminsanahay in aan heli doono kalsoonidiina insha allah. haddii aan idin siiyo macluumaadkayga oo kooban ama ku saabsan noloshayda, waxaan dhashay 1990kii. waxaan ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. haddii aan ka hadlo heerkayga waxbarashada dugsiga qur-aanka maadiga, dugsigayga hoose dhexe ee sare waxaan ku qaatay ablaal primary and secondary school, alcimra, alfurqaan oo intaba ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. hadda waxaan wadaa jaamacad, waxaan ka bartaa kuliyadda maamulka iyo maareynta. micnaheedu ama yacni BA waxaa iiga dhiman haddii rabbi raalli ka noqdo 2 semester wax ka yar ama 6 bilood haddii ilaahay uu yiraahdo insha allah jaamacadda ka qalinjabinteeda ama ka dabcashada buugga insha allah. waxaan aaminsanahay haddii waalidiintayda iyo walaalahay beelaha lixda shiidlo ay siiyaan codkooda kalsoonida, iguna aaminaan kursiga tirsigiisu yahay hob eber 5, in ay ii shalayn doonin sida hadda ay ugu shalaayaan sida ay hadda ugu shalaayaan mas-uuliyiinta horey ugu soo matashay kursiga hob eber 5. waxaana ugu matali doonaa sida ilaahay igu ogyahay iyo sida iyaga ay doonayaan insha allah. waxaan aaminsanahay in ay tahay waqtigii dhallinyarada loo baahnaa, mufakkar wax bartay, dalkana fahansan, shiidlana beelaha lixda shiidlana fahansan. aniga waxaan isku arkaa in aan intuba ahay muddo 20 sanana aan ku dhex jiray, aana ogahay baahiyaha gaarka ay qabto beelaha lixda shiidle ee degta dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. codkiina waxa uu qiimo leeyahay maanta. mar labaad ayaa ku celinaya, codkiina waxa uu qiimo leeyahay maanta. waxaan la dardaarmayaa beelaha lixda shiidlo, codkiina qiimaha maanta uu leeyahay waxay tahay afkiina ayuu ku jiraa. idinka oo dhow in aad isiisaan codkaas. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad beelaha lixda shiidlo aan ka codsanayaa in ay igu aaminaan codkooda, in ay igu aaminaan kursiga tirsigiisu yahay eber 5. waxaan u gudan doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo sida ilaahay ila og yahay. maxamed yaasiin mahdi maxamed deeq alfa waxa uu muddooyinkii dambe ku howlanaa samata bixinta dadkii ay saameeyeen fatahaadihii ka dhacay deegaanada ay shiidla degto,
waxaana uu ku caan baxay garab istaagga kuwa tabaalaysan maantana waa musharax u taagan inuu iyaga matalo. cabdishakuur shaashaa, warbaahinta City, Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.